soo dhawaada geedka waa maalintii 13 December maalin weyn oo murugo leh maalin madow oo murugo leh oo la xasuusanayo waaye xasuuqii iyo afduubkii ka dhacay magaalada Baydhabo taasoo lagu laayay maati muujinayo rabitaankooda iyo murashixii ku taagnaa shirka madaxweynaha koonfur galbeed oo la afduubtay sifa sharci dara ahna loo adeegsaday ciidamo ajnabi ah oo Etoobiyaan ah madaxweyne Mukhtaar Roobo Cali baroordiiqdaas ayaan u joognaa maanta annagoo baroordiiqayno tacdiyadaas oo ka dhacay 2 sano ka hor magaalada Baydhabo runtii ummad haddaysan lahayn maalmaha aysan u kala socneen maalin farxadeed iyo maalin murugo ummadaasi taariikh ma yeelanayso maxaa yeelay ninkii hilmaamo shalay wixii dhacay beri ma shansanayo saa darteed waxaan rabnaa inaan hoosta aga xariiqno 13 December in ay tahay maalin madow oo ummadda digil iyo merifle loo suubiyey taasoo uu u suubiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo aan ognahay ihaanadii uu ku ihaaneeyey buuggii tiisaha uu qoray taas ayuu fuliyey wuuna ka dhaweeyey ummaddan inaysan yeelanin masiir iyada ay raalli ka tahay inaysan yeelanin waa ka dhaweeyey Maxamed Cabdullaahi isagoo u adeegsanayo camiilo u dhashay qoomiyadda digil iyo merifle isagoo u adeegsanayo ayay u hirgashay ayna u fushay marka waxa waaye waa cambaareynayna xasuuqii Baydhabo ka dhacay 2 sano ka hor iyo afduubkii la afduubtay musharax madaxweyne Mukhtaar Roobo oo ilaa iyo hadda sifa aan sharci ahayn ugu jira gacanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo la og yahay Mukhtaar in uu 5 sano iyo 7 bilood banaanka joogay 2 sano ku dhawaadna uu dowladda Farmaajo la joogay in haddana mataqaanaa ay weliba ka sheegeen idaacaddooda markuu ahaa musharax haddana markii ay ogaadeen in yacni aqlabiyadda shacabka uu haysto ay afduubteen marka waxa waaye waa cambaareynayna waana maalin murugo ah taariikhda qoomiyadda ay leedahayna inay ka mid noqoto ayaan ugu baaqaynaa bulshada ay ogaadaan maalintaasi xasuuqa iyo dhibaatada dhacay la afduubtay rabitaankooda in ay u baroordiiqaan ayay caawa isugu yimaadeen iyadoo runtii dad badan aysan imaanaynin oo cudurka COVID-19 dartiisa loo xadiday loona diiday dad badan sharciga waddankan u yaalo inay kulmaan darteed ayaa xafladda ay u noqotay xaflad gaaban ayay u noqotay marka runtii annagaa ku filan oo muujinayno calaamadaynayno maalintaasi inay tahay maalin murugo leh oo madow waxaa kaloo aan cambaaraynaa fal ka dhacay maantay magaalada Baydhabo iyadoo la afduubtay gabadh hooyo ah oo xaamilo ah oo 8 bilood ah kadib markii ay ka hadashay fikirkeeda ay taageertay amniga iyo cadaaladda ee rabitaanka shacabka oo la afduubtay dartiis ay uga qayb gashay xafladii ka dhacday magaalada Baydhabo darteed loo afduubtay iyadoo diinta islaamka ay dhigayso in qofka bini aadamku uu xaq u leeyahay in uu fikirkiisa iyo caqligiisa cabiro qodobka 18aad ee dastuurka beelgaarka Soomaaliyana uu dhigayo in qof walba oo muwaadin ah oo inuu xor u yahay fikirkiisa inuu soo bandhigo xirfadiisa media iyo xirfadiisa iyo aragtidiisa suugaan ha ku cabiro ama yacni si kale ama qoraal ha ku cabiro inuu xaq u leeyahay qodobka 18aad ee dastuurka dalka ayaa siinaya marka waxaan leeyahay hadda hooyo xaamilo ah aan dembi gelin sifa loo xirto iyadoo 2 qofood ah iyada iyo nafta caloosheeda ku jirto loo afduubtay waa faldambiyeed aad u weyn waaye saa daraadeed waxaan aad ugu baaqaynaa maamulka marxuumka ah ee meesha ka taliya in
ummadda uusan mataqaanaa dhibaataynin sababtoo ah rabitaanka shacabka caburid iyo cagajugleen iyo taangi etoobiyaan ma lagu haysan karo shacabkan waxay xaq u leeyihiin in ay ka turjumaan masiirkooda iyo rabitaankooda ayna soo bandhigaan shucuurtooda wayna soo bandhigayaan wayna soo bandhigi doonaan ilaa qiyaamaha saas ayay usoo bandhigi doonaan marka hadalka waa la iiga dambeeyaa walaalo badan ayaa fadhiya waxaan ku baaqaa aan ugu baaqaa shacabka guud ahaan koonfur galbeed cadaaladda ay raadinayaan in ay gacantooda ku keensadaan sababtoo ah cadaaladda hadiyad bal isku siiyo waad u jeedaan maamulka marxuumka ah ee meesha idin yaalo inuusan yani danihiina iyo horumarkiina uusan ka shaqaynaynin ilaa iyo hadda waxaa xiran wadooyinkiia xiran way kasii dartay magaalada baydhabo oo hadda maamulka fadhiidka uu fadhiyo ayaa habeen walba yani ay soo weeraraan qolooyinkii nabaddiidka ah marka waxaan leeyahay waxa kan maamul ma ahan waa maqaarsaar loo soo adeegsaday in uu madiidin u noqdo farmaajo laguna dhibaateeyo shacabka ayaa meesha loo keenay wax walba oo xun waxaa la rabaa in lagu tijaabiyo koonfur galbeed hadda waxaa la sheegayaa doorashada aqalka sare in lagu tijaabinayo koonfur galbeed wax walba oo xun oo la rabo in lagu tijaabiyo dalka xataa haddii cudur la keeno la rabo in lagu tijaabiyo waxa ay noqonaysaa koonfur galbeed meeshii lagu tijaabinayay ayay noqonaysaa wax walba oo xun wax walba oo xun meeshii lagu tijaabinayay ayay noqonaysaa koonfur galbeed marka waxaan leeyahay horey ba aga dhicin koonfur galbeed in qoomaluud fal qoomaluud ah inuu ka dhaco ninkan ku hor fal qoomaluud ah meel uu ka dhacay male ninkan ku hor marka ninkan musiibada ah wax uu yahay aan la garanaynin falalka yani foosha xun oo fawaaxishta ah u horseeday ummadii dhaqan gelinaya faafinaya fidinaya qoomaluudnimada waxaan leeyahay hal iska qabto waa tii afkiisa uu ku sheegay uu lahaa nin maskiin ah hebel baroodo wiilkiisa in mataqaanaa $1 wax ka yar loo dilay isagaa afkiisa ku sheegay marka waxaan leeyahay weliba cadaalad ma helin marka waad ujeedaan culimada iyo waxgaradka waxaan leeyahay beri waa qaylin doontaan haddii fidno ay dhacdo waad qaylin doontaan fidnada waxa waaye waa huludaa in la toosiye ma fiicno fidnada ha laga hortago fidnaa soo socoto fidnada markii ay kacdanay hadda yani dad ay qaas u noqonayso ma jiro dadka oo dhan bay wada camimaysaa saa daraadeed waxaan leeyahay in laga hortago oo la joojiyo intaysan fidnadaasi fidin ayaan ku baaqayaa 13 December waa وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود dadka nool annaga shahaadadii ah dadka dhintay waa mashhuudintii maalinta qiyaamahana asagay qoorta u suran tahay cadaaladana waa la horkeeni doonaa haddii aan ilaahay subxaana watacaala may uusan dhihin maalintay noqotaba cadaaladda waa la horkeeni doonaa dadkii geystay daboolfaladii ka dhaxay magaalada baydhabo xasuuqii la xasuuqay maatida afduubkii la afduubtay musharax madaxweyne waa arrin laga jaasinayo marka waxaan leeyahay reer koonfur galbeed xasuuqa ka dhacay magaalada baydhabo iyo afduubkii musharax mukhtaar hoogow waxaa ka gadooday nin aan annaga nagu diin ahayn nagu af ahayn nagu midab ahayn ayaa ka gadooday nicholas hayson ayaa ka gadooday sideen annaga aan iga gadoodi weynaynaa xasuuqii uu ka gadooday nin ajnabi ah oo aan nagu diin ahayn nagu midab ahayn nagu af ahayn oo ka gadooday miyaan annaga yani aqbali karnaa waa maya ma aqbali karno hoostayna waxaa dhigraanaysaa ma sanad walbana waa hosaynaa waxayna noqonaysaa taariikhda ilmaheena ay baranayaan ayay ka mid noqon doontaa wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu